كيلولك حكومة الصومالية ويهلنا يان وزير كحجينك وزارة إمارية مريتان كهودا الصومالية ماريه جود مامل كي نبدجليدا قرونكا يا مانت شيء إن هلا شقي قرونكا ديارده أذن عبد الله وياهي ميسي توصل شقينا يلبي تبانك الصبح نمو إلا يتبانك بينمو سي شقدا بينك قرونك نقضو مدي بلشة وقوف يسان كدي مركي دولة الصومالية لسوريتي سادا شهودا وزير كجادت كإرك يدولك حكومة الصومالية يا شركتها دول مادة كسمية قرونك ديارده أذن عدو شيء إن حلي جابين كي يسمين كران دول مادة هرك عالمي إسلام مركنا قرونك لورد مستري هذا كده قرون العالم كليين أحمد معلم حسن ماريه مريتان كهودا الصومالية قرونك ديارده أذن عبد الله أي شرحات كوبان كبحيي وقت يلوكر لي حلي الشغادة قرونك ديارده airbortka muqdisho oo saacadii oo furnaan jiray lagu daray 4 saacadood مثلا markii aan soo qaato airborku wuxuu shaqayn jiray 12 aroornimo oo ah 6 aroornimo ilaa iyo 12 maqribnimo ama 6 maqribnimo intaas ayuu furnaan jiray taas waxa ka dhalatay in maaragtay diyuurada fara badan ee airborki yimaadaan airborki mashquul noqday baakinkii ama meeshii ay diyuuradu istaagayeen ay diyuuradii deeqi waysay marka waxaan ku khasbanaanay dawladda Soomaaliya waxay ku khasbanaatay in si loo baakin space loogu helo diyuuradaha soo kordhay in saacadii garoonka shaqeynaya la kordhiyo oo lagu daro 4 saacadood oo dheeriya dawladda Soomaaliya ayaa u sheegtay shirkadaha isgaarsiinta ee gaarka loo leeyahay Antonooyinkooda ku yaala degmooyinka waa bari xamar weyne xamar jajab warta nabadda hodan wadajir inay ku xiraan leerar muujinaya Antonooyinkooda si diyaaradaha duulimaadada sameeyo xilliyada habeenkii aysan dhibaataynin wasiirka wasaaradda gaadiidka cirkii dhulka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad oo madasha ka hadlayay ayaa sheegay in ahmiyadda ugu weyn ay tahay in garoonka habeenkii ku soo degi karaan diyaaradaha heerka caalami ahmiyadda ugu weyn hadda meeshan aan sugu nimid maanta waxay tahay inaan idin la socodsiino waa sida aad la socotiin airportkii waxa loo sameeyay runway lights waxyaabihiina looga baahnaa in diyaarad ay habeenkii ku soo degto oo idil waan sameynay laakiin internationally diyaaradda ka soo baxaysa hadda wadamada kala duwan ee adduunka ma ogaan karin in airportku uu furan yahay habeenkii marka saacadda ka bilaabato maanta waxa inoo bilowday in internationally loo ogeysiiyay diyaaradaha adduunka oo dhan iyo waxa hawada isticmaalo dhan in garoonka aadan cadde international airport aadan cabdulla international airport uu furan yahay subaxii laga soo bilaabo 6 in the morning 6 subaxii ilaa iyo 10ka in airportkaas uu noo furan yahay diyaaradahu og yihiin dhawaan ay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu xariiq ka jaray mashruuca dib u hawlgelinta duulimaadada xilliga habeenkii in ka badan 20 sano garoonka diyaaradaha aadan cadde u sameeynin duulimaad xilliga habeenkii